intii uu dhoolatuska ku jiray oo dhan wuxuu wiilwaal kolba jeedaalinayay halkii uu colkiisu tuuraa ujeeddadiisu waxay ahayd dhoolatuskiisa inuu ku sii wado oo banka ballaaran uu kolba dhinac u cararo tan iyo inta guutooyinkii uu sugayay ay ciidankiisa ku soo biirayaan taasina sidii uu rabay ayay u dhacday markii la wada arkay fardihii reer bariga siigadoodii oo mar keliya cirkii iyo dhulkii kala qarisay sow xoog hor lihi kolkaana kuma soo kordhin dabadeed ciidankii gaaluhu halkuu tuuraa intuu isha ku xaday ayuu weyrax cagta u rogay xawli la yaab leh ayuu ku gaaray goobtii uu ammaanduulahoodu dhoolatuskiisa ka daawanayay markaas baa waxaa la isweydiiyey muxuu ka doonayaa meesha uu ciidanka cadowgu dhooban yahay muxuu talow maagan yahay cidina lama oga wuxuuse rabaa inuu ballankii ka baxo oo dagaalweynaha ka horba uu boqorka gaalaha dhegta dhiigga u daro gaalguray tashiga caynkaasa maba soo rogin xawaaraha wiilwaalna wuxuu u haystaa inuu qayb ka yahay tirtirfadkii ay isku ogaayeen dabadeedna isaga oo sidaa isaga baraadla ayuu ku war helay hooto duuddheerta qaybteeda hoose kaga dheggan iyo isla markiiba waran isna hardaad ku haleelay oo xudunta bartankeeda kaga taagan kaas baa inta xidmihii calooshiisa harakeeyey cadcad u rogay oo haddana dhabarkiisii ka kuday sow kolkaana cid walbaba uma caddaan mar aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeri doono hase ahaatee intii aanu faraskii ka duulin ayuu gaalguray istiilayoo labadiisii waran midkood gacanta bidix la helay wiilwaal oo meel aan ka fogeyn ka muuqda ayuu ku tuuray isna gaashaankii uu bidixda ku haystay intuu isaga dhigay ayuu hadheed isaga dalfiyey sidaana kaga badbaaday dharaartaasna waxaa sidaa ku ahaaday ka sabaan dagaalyahankii ay gaaluhu hasha ku maalayeen garaadkuna markuu hubsaday boqorkii gaalaha inay naftii daysay ayuu marada u taagay ciidankiisii iyo kuwii soo xoojiyey ee gurmadka ugu yimid markaasba iyagiina lug iyo farasba sidii gamuunna fallaara laga ganay u soo gulfeen oo haddiiba bankii qof iyo siiga ka dhigeen wakhti iskama ay lumine si degdega ayay birta ugu boobeen guutooyin idiloo maantaa ka hor geesinimo lagu kuunyi jiray asiirjoo horadii dhigay kadib halyeygoodii markuu wiilwaal ku hamuun tirtay haddii dirirtaa laga joogo ayuu wiilwaal faanayoo gabyaana wuu ahaaye wuxuu tiriyey tixuu isku ammaanay goobtaana uu ku taariikheeyey waa gabayga ugu caansan maansada tirada yar ee garaadka naga soo gaadhay wuxuu yidhi xalay gelin dhexaadkii miyaan gogasha soo laabay